السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان داوديال كسو دبادا جنالka Cabdal Carab Official. ugu horeyn haddii aad janaalkan ku cusubtahay fadlan subscribe, sidoo kale videogan like saar. Dhammaan sidaad wada ogtihiin caawa waxaa idin wadnaa fanaankii la xiray, fanaankaasoo lagu magacaabay Alfanaan Cabdi Dhaanto. Sida aad wada ogsoonedeen dhammaan in la xiray fanaanka caanka ah Cabdi Dhaanto oo ay xireen ciidamada qaaska, waxaana lagu xiray in uu qaladaad ka galay arrimo ku saabsan dowladda. Kadib markii la xiray muddo gaaban kadib ayaa lagu sameeyay baaritaan dhan waliba ah, hase yeeshee lagama helin wax dambi ah oo aad u weyn. Kaliya waxaa la soo ogaaday in uu hadallo qaldan ka sheegay arrin ku saabsan dowladda. Haddaba shacabka Soomaaliyeed ayaa isweydiinaya waa maxay arrinkaas. Marka arrintaas ma ahan mid aad u culus ee waa hadal yar oo dhahay Alfanaan Cabdi Dhaanto, hadalkaasoo ahaa in uu yiraahday qarax ayaa dhici doono waxa uuna ka dhacayaa magaalada Muqdisho Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir ee degmada Waaberi. Qaraxaasoo lagu fulin doono kooxda caanka ah ee loo yaqaano Howlada Waaberi, kaasoo gudoomiye u ahaa Alfanaan Nimcaan. ninkaas asaga ahaa barnaamijyadaas waxyaalahaas loo weystay. hadda xuridiisa hore u helay xabsiga intaas oo beriga ku jira, adiga 4 beri camal oo ku jira xabsiga. xuridiisa fanaanka caanka ah xuridiisa khaaska oo hadda helay, sida arkaysaan magaalada Muqdisho bagaxaya, waa iska baashaalaya asxaabtiisa oo waqti la qaadanaa sida ciwaanada Facebook-ga page-kiisa lagu yaqaanay Cabdi Dhaanto. والله asxaabtiisa waqti la qaadanaa sida faahfaahinada meesha uu ku bixinaa qaabka loo xiray iyo meelaha lagu xiray, faahfaahinta page-kiisa waxyaalahaas kala soconaanaga video. hadda waxaa soo saarnay saas weeyaan asxaabta waxaan iga codsanaa channelka hadda ku cusubtahay subscribe saar, video like saar, video share garay. sidaas iyo nabadgelyo.